asalaamu calaykum waraxmatullah. Waa qeybtii saddexaad ee barnaamijkeenii tijaabi aqoontaada diimeed oon maantana kusoo gudbin doono 6 su-aalood oo la rabo in laga jawaabo. Ma ahan inaad ka wada jawaabto haddii aadan garanaynin, balse isku day 2, 3, 4, 5, 6 iyo 1 wixii aad awooddo ee aad garanayso kasoo jawaab insha allahu tacaala. Jawaabahana waxaan anagana soo gudbin doonaa berri galabkii iyo cidda ka jawaabta insha allahu tacaala. bismillaah, waan bilaabanaynaa. waxaan filayaa inaad diyaar tahay. su-aasheena koowaad ee maanta waa suuradda aayad waliba oo kamid ah uu ku jiro lafdu jalaalaha allah. yacni suuradan aayad waliba oo kamid ah waxaa ku jira magaca ilaahay ee ah allah. suuradda ma jumacba oo loo yaqaano malikul quduus, mise waa wanaasicaad, mise waa mujaadala oo loo yaqaano qad samica leh. mid ka dooro. su-aasheena labaad waa maxay dembiga ugu weyn ay macquulka tahay inuu qofka bini aadamka ama addoonka ilaahay uu ku dhaco? dembiga ma azinaba inuu sinaysto, mise waa ashirku inuu ilaahay u shariig yeelo, mise waa alqatlu inuu qof kala dilo si xaq darrahan uu ku dilo? mid ka dooro. su-aasheena saddexaad, nabigeena sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoonayay meeqa sano ayuu jiray? ma 61 buu jiray, mise 62, mise 63 sano? waxaan filaya inaad garanayso aadna ka jawaabi doonto insha allahu tacaala. su-aasheena afaraad waa meeqa tirada gabdhihii uu rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam u dhalay? meeqa gabdhood ayuu nabigu dhalay sala allahu calayhi wasalam? ma 3 bay ahaayeen, mise 4, mise 5? ka dooro jawaabta saxda ah insha allahu tacaala. su-aasheena shanaad, kam maratin xaja nabiyu sala allahu calayhi wasalam? meeqa mar ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu xajiyey? meeqa mar ayuu rasuulku xajiyey? ma 1 mar, mise 2 mar, mise 3 jeer? jawaabta saxda ah ka dooro. su-aasheena lixaad ee u dambeysana waxaa weeyaan, man huwa awalu safiirin fi lislaam? waa kee safiirka ugu horeeyey ee islaamka? ma abubakr sidiiq baa? ma muscab bin cumayr baa? ma jacfar bin abi aalib baa? safiirka ugu horeeyey ee uu rasuulku diray una diray dad sifo uu diinta u baro oo uu ugu noqdo macalin. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkaadan. haddii aad ka heshay kusoo biro subscribe channelka dacwada diinta ee leeska islaamka. sidoo kaleete haddii aad awoodo jawaabaha ama qaybo ka mid ah hoos noogu reeb siina gaarsii walaalkaada isleedahay uu ka jawaabi karaa.